الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعند وضيال كسر لواده برنامج جارو وندوني إننا نكجا هذلنا أرمها دين على الدستور كي حقوق ذا آذنها برنامج كانوا حسي توصيدين كجي معنا يا مقالة مقدشة عاصمة الصومالية سيدا دوان لو شاعية أما يشاعسي قرمة مدوبي وكهل ليسي أرمها لحريرة أنك حقوق ذا آذنها الصومالية هي الدستور ayaa koobiye waa bishii September aynu ka soo gudubnay waxa jirtay warbixin ay soo saartay oo ay kaga hadlaysay arimahaasi waxaana ay sheegtay qaramada midoobay inay jiraan tacadiye kala duwan oo loo geysto dadka barakacayaasha iyo kuwa taagta yar taasi oo markaa iyaduna kaga imaanaysa dhanka xuquuqda aadanaha ama dhibaatooyinka dhanka xuquuqda aadanaha waxaa sidoo kale jirtay in ay qaramada midoobay shaaca ka qaaday warbixinteeda oo ka koobnayd 22 bog horumar kala duwan oo ay gaartay dawladda Soomaaliya asaate waxaa la rumaysan yahay sida ay sheegtay in dhibaatooyin kala duwan loo geysto dadka taagta daran gaar ahaan kuwa barakacayaasha sabab la xiriira aqoon la'aan dhanka dastuurka oo iyagu laftigooda ay qabaan qaybaha kala duwan iyo waliba dhanka qaanuunka dawladda Soomaaliya waxaa sidoo kale ay sameysay si markaasi iyaduna ay u difaacdo dhanka xuquuqda dumarka iyo waliba sidoo kale dadka kale ee dhibaatooyinka kale iyaguna wajahaya in markaasi ay xoojiso dhinaca dastuurka iyo waliba sidoo kale ay geliso dadaal fara badan taasoo lagu doonayo iyaduna in sare loogu qaado dhiiranaanta dadku ay ku helayaan dhinaca dastuurka sidoo kale barakacayaasha iyo dhalinyarada iyagu laftigooda ay ka helaan xuquuqaha ay ku leeyihiin dhinaca dastuurka waxaana sidoo kale dawladdu ay sameysay qaybo kala duwan oo dhanka bulshada ay culimadu ka mid tahay in horumarinta dhanka xuquuqda aadanaha iyagu laftigooda iyo hoggaansamida dhanka sharciga iyo waliba sidoo kale wadajirka dhanka siyaasadda ay ku jiraan heerarka dhanka dastuurka iyo galeelida hay'ado qaran oo dhanka xuquuqda aadanaha iyo waliba sidoo kale kuwaasi la xiriira oo ay ka mid tahay dhanka garsoorka iyo waliba sidoo kale dhanka booliska madaniga haddaba su'aasha waxa ay tahay sidee sare loogu qaadi karaa dhinaca dastuurka iyo waliba sidoo kale ku tiirsanaanta dhanka qaanuunka iyadoo waliba sidoo kale ay bulshadu u yihiin kuwa sidoo kale dhammaantoodba ay u wada siman yihiin barnaamijkayga inta uu socdo waxaa nagala qayb gali doona hadduu allaha awood leh yiraahdo Dr. Xuseen Cabdi Cilmi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale nagala qayb gali doona hadduu alla idmo Axmed Hiirad Sugul oo sugulle oo isaguna ka socda Ras Institute for Policy Analysis oo waliba markaasi loo soo gaabiyo rugta aragtida aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo isaguna barnaamijka nagala qayb gali doona waxaa sidoo kale nagala qayb gali doonta hadduu alla idmo Xawa Cali Cismaan oo iyaduna ka socota SSW oo ah Safe Somali Women and Children oo markaa iyaduna barnaamijka nagala qayb gali doonto waa Safe Somali Women and Children SSWC oo markaa barnaamijka iyaduna nagala qayb gali doonto inta aanu ku guda jirno haddii uu allaha awood leh yiraahdo adunkuna sidoo kale waxaa idin furan sidii aan marka horeba idin sheegnay inaad nala socotaan sidoo kalena wixii su'aalaha aad qabtaan aad nala wadaagi doontaan hadduu alla idmo inta barnaamijkiigu uu hawada ku jiro waa hagaag waxaan ku bilaabayaa Dr. Xuseen oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka ee Soomaaliya mudane maxay yihiin qorshayaasha dawladda ee xoojinta muwaadinka ee ka qaybgalka dhanka dastuurka iyo isku xirnaanta dhanka qaanuunka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم iyo kasoo qaybgalayaasha bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan aqoon-yahanada dhalinyarada iyo saaxiibaday oo banalka ila fadhiyo oo ayagana aan aad u salaamayo intaa kadib barnaamijkan waan ogaadinaynaa waana barnaamij aad u qiimo badan wax badan in lagu ogaadana u baahan qorshayaasha dawladda waxaa u degsan qorshe ballaaran oo siyaasad ku salaysan xukuumaddan mase dawladdan hadda jirto waxaana asal u ah oo asaas u ah qofka muwaadinka ah xuquuqdiisii iyo ilaalintiisii iyo in la sameeyo taasna waxaa saldhig u ah dastuurka oo qabyatir in lagu sameeyo oo dawladda waxyaalaha la ballan qaaday oo 2 sano in la qabyatiro qorshaheedu uu yahay dastuurka ayay ku caddahay ilaalinta muwaadinka wuxuuna ku jiraa qodobada ugu horeyso fasalka 2 wax ka badan 20 qodob oo dastuurka ku-meel gaarka ah 2012 oo hadda qabyatirka ku jiro waxa uu ka hadlayaa marka laga bilaabo qodobka 10aad ilaa 41aad xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed xaqaas oo ka bilaabanayo maalinkuu caloosha u isgalo ilaa uu ka dhinto
xaqi nolosha inuu amni helo inuu helo mataqaanaa caafimaad inuu nolol helo inuu waxbarasho helo waxyaalaha oo mabaadi'da oo dastuurka aasaaska u ah ayuu ka mid yahay taas ayadoo laga ambaqaadayo in badan oo kale oo haddee dastuurka uu ka hadlayana wuu jiraa oo dowladnimadii iyo marka xuquuq la yidhaahdo waxaa garab socdo waajibaad muwaadinkana xuquuquu leeyahay isagana waajibaada saaran oo muwaadinka kan kale uu ka saaran yahay dowladdii iyo bulshadii iyo dhaqankii iyo jiritaankiina waajib kalaa jiro intaba faritaanadaas ballaaran dastuurka uu ku yaallaa laakiin sidaad la socotiin qaranjabkii nagu dhacay muddo 30 sano oo wax yar dhiman amase 30 sano dhibaato baa lagu jiray waxaa laga maarmaan noqotay dib in la iskugu soo laabto ummaddii soomaaliyeed oo kala irdhowday dowlad la-aan ku dhacday si iskugu soo laaban karaan si xaqa qofka loo ilaalin karaa yaa ilaaliyo xaqa qofka dowladaa ilaaliso dowladna ma ilaalin karto haddii helin shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo awood iyo amni iyo dhaqaale ay helin taasna waxay ku soo wada aruursanaysaa dastuurka oo ah kan ugu sarreeyo shuruucda dalka hadduu dastuurkaada dhammaystirnayn hadduu qabyo uu yahay waxaa laga yaabaa inaa wax badan ay ka maqan yihiin marka dowrka dowladda mase howsha aada loogu mashquulsan yahay siduu qofka muwaadinka u helo xaqiisa mid bulsho iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqan wax walba oo uu waxaysan yahay dastuurkii aa socdo marka qodobkaas waa waxyaalaha ahamiyadda ugu horeyso oo markaad arkaysid dastuurka waa lasoo hormariyey qodobo badan aa ka dambeeyo dowladnimadii dhammayd iyo qaabkii maamulkii isku maamulahay oo dhan ayaa laga soo hormariyey marka dowladda waa shacabka shacab haddaan la helin dowlad la heli mahayo sidaa oola soconno dowladnimada saddexda haykalka mase ay ka kooban tahay shacabkii iyo meeshii dhulka lagu noolaa iyo awooddii siyaasadeed oo ilaalinaysa xuquuqdeedii oo dowladdu u ahayd marka waxaa samaysmahayo hay-adihii oo dastuuriga ahaa qaybahoodii kala duwanaa waxaan ku jirnaa marxalad baa laga guurayaa marxalad kalea loo guurayaa nidaamkii aan ku soo dowladdanadii ay ahaan jirtay oo unitary systemka ahaa oo waa burburkii markuu dhacay isbeddel badanaa dalkii ka dhacay waxaa la yidhi maamul goboleedyo federaal shuruucdii waxaasoo nidaamin lahayd oo dhanna way ku garab socotaa dastuurka marka la sameeyo qaarna way samaysmahayaan oo hadda way socdaan qaarna way waxaysmahayaan marka dowladda soomaaliya dastuurkeeda saas u ilaalinayo qofka bini aadanka waxaa ilaaliyo cahdiyo oo caalami ah iyo qodobo oo mataqaanaa ummadaha midoobay ay ku midaysan yihiin inuu bini aadanka karaamo leeyahay annagana dad islaamaan nahay oo ilaahay baa yidhi walaqad karramnaa bani aadama karaamadaas uu ilaahay siiyey ayay dowladdana inay ku ilaaliso muwaadinkeedii ayay u taagan tahay laakiin dowladdii samayskeedii awoodaheedii hay-adaheedii dhismihii sugitaankii amnigii waxaad la socotiin waxa ugu horeeyo oo muwaadinka xaqa uu leeyahay waa inuu amni helo nafta ayaa loo hormariyey wax walba laga hormariyey marka waa amni inuu helo dowladda waxay aada ugu waxaysan tahay ood la socotiin dalka amni darrada ka jirta inay amnigiisa la sugo waxay ka mid tahay waa shay oo dastuuri ah oo dowladda waajibaadkeeda ka mid tahay laakiin dowladda keliya ma aha waxa dastuurkana ilaaliyo dalkana ilaaliyo waxaan nidhi bulshada mase shacabka ayaa dowladda ah dadkaas way maamul waayo boqolkiiba 5 mase wax ka yar ayaa maamulka hayso inta kale ayaa ilaaliso shuruucda
waxaa ka horeeya horta qofka muwaadinka ah inuu xaqa uu leeyahay xaqa bulshada ay ku leedahay waxa laga rabo dastuur wuxuu yahay muhiimaddu u leeyahay in uu ogaado maadaama muddo dowlad aan ku jirnayna fahamkii dowladnimada hoos buu u dhacay laakiin isbeddel fiican oo aad u wanaagsanaa socdo oon leenahay meel fiican ay ummaddii hadda ay soo gaartay wacyigeedii iyo aqoontii iyo dareen badan inuu jiro. waayahay waad mahadsantahay mudane wasiir waxaan siinayaa axmed hiirad oo isaguna ka socda rugta aqoon-yahanka iyo aragtida soomaaliyeed ee raas. waayahay axmed, muxuu yahay fahamka bulshada ee la xiriira dhanka dastuurka iyo qaanuunka? waxaan is leeyahay horta dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka hore intaanan u gudagelin su-aashaada sidaad horeba u sheegtay haddaan isbaro dadka halkan fadhiya dhallinyaradan kasoo qayb gashay maanta forumkan ama doodan runtii anigu waxaan ka mid ahay RAS Institute for Policy Analysis. xarunteenu waxa weeyaan waa xarun cilmi baaris doodo iyo tababaro samaysa. waxaan is leeyahay fahamka markii loo gudbo bulshada Soomaaliyeed dastuurka guud ahaan aniga waxaan is leeyahay runtii fahamka bulshada meeshii loo baahnaa ma gaarsiisana muhiimadna inta badan ma siiyaan. waxaan arki karnaa haddaad tagto guryaha Soomaaliyeed ama aad la kulanto inta badan dhalinyarada iyo dadka aqoon-yahanka Soomaaliyeed haddaad weydiiso constitutionka Soomaaliya ma ku soo gaaray ama ma haysaa waxaan u maleynayaa boqolkiiba 90 iyo above inaysan haynin. in yaroo kooban baa dastuurka haysa aragtay akhriday ama la socota. markaan idhaahno fahamka waxaad ka qaadanaysaa qiyaasta cabirka numberka dadkuna inta badan Soomaalida cilado badan oo jira awgeed oo ay ka mid tahay dadkeenu inta badan akhriska xogaa aan meeshii loo baahnaa joogin oo runtii ay yar yihiin maanta in la helo qof Soomaaliyeed oo sida dadka caalamka kale ama dunyada kala jooga qof akhriyay intaasoo buug 100 buug 200 buug 300 buug 400 buug. waxaan is leenahay marka wacyigeena akhrisku meeshii loo baahnaa ma gaarin. waxaana de wax qoran oo maaragtay dad qoray oo la diyaariyey haddaadan akhrisanna waxaa kugu yaraanaya fahamkiisa iyo inaad la socoto waxa meesha ku jira. runtiina waxaan is leenahay marka wacyiga bulshada loo fiiriyo meeshii loo baahnaa ma joogto laakiin in dastuur la sameynayo in wax socdaan in hawlahaasi jiraan in xogaa wax waa jiraan laakiin runtii meeshaan maanta u baahnayn ma gaarsiisana. waxaan is leeyahay maanta meesha uu taagan yahay dastuurkan ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddii bulshadu ay la shaqayn lahayd dowladda ama meeshii loo baahnaa maaragtay wacyigooda uu taagnaan lahaa runtii meesha maanta la taagan yahay yacni meel ka fiicnaan baa la taagnaan lahaa. mararka qaar waxaa jirtay constitutionku inuu hakad ugu jiray arrimo dhaqaale awgood. marka haddii bulshada Soomaaliyeed ay muhiimaddaas dareensan tahay inagoo dhaqaalaha ku bixino waxyaabo kale oo fara badan oo inta badan faa'iido inaga soo gelayninba haddii la fiiriyo haddana markii laga hadlay constitutionku waa heshiis bulsho runtiina dee bulshadu waxay heshiis ku tahay waa constitutionka waxay doonto ha noqoto ama xaq waxbarasho ha noqoto ama mid nolol kale ha noqoto ama mid caafimaad ha noqoto ama mid ka qaybgal siyaasadeed ha noqoto ama qofka bini aadanka ee Soomaaliga ee Soomaaliya ku nool xaquuqda uu ku leeyahay dalkiisa iyo dadkiisa waxaa tilmaamaya min bilow ilaa dhammaad dastuurkaas ku meel gaarka. marka runtii wali bulshada Soomaaliyeed intay meel isugu tagtay oranaysa war maxaa hor taagan dastuurka yagi waxaan u baahanahay inuu qabiyo tirmo. waayo waxaan ognahay 2012 markii xasan sheekh la dooranayay oo madaxweyne sheekh shariif xilka wareejinayay dawladdii waxay ka baxday si rasmi ah uga baxday hanaankii ku meel gaarka ahaa. almost waxa hanaankii ku meel gaarka ahaa ku haray dastuurkii dawladdiina way ka baxday. waxaad dareemi kartaa inay caqabad tahay dastuur ku meel gaar iyo dawlad rasmi ah isla shaqeeyaan. yani sharcigaad ku shaqeynaysaana waa ku meel gaar adiguna waxaa tahay rasmi. halkaa xogaa waxaad dareemaysaa yani inaanay inta badan isbuuxinaynin mararka badanna aad aragtay markii doodaha la isqabsado example tusaale haddaan qaadano haddii ay isku yara dhacaan xukuumadda iyo baarlamaanka oo kale ama baarlamaanka gudihiisu isqabsadaan qodob dastuurina qof bas u akhriyayo in badan aad ka dhegaysataan idaacadaad idinku warbaahinta adiga kuuba sheegmaya lakin bulshada Soomaaliyeed aad arkaysaa hal qodob oo laba qof mid bas u daliishanaya. yani taa waxaa keeni kara
inaan u baahannahay runtii constitutionkan inuu ka baxo qabyada maadaama dowladdeennii aan heeramkii labaad xasan sheekh uu ahaa dowlad si rasmi ah oo aan federaal ah oo aan ahayn ku meel gaadh haddana maxamed cabdullaahi farmaajo almost uu 2 sano shaqaynayo oo bishan Febraayo aan marin 8 labadii sano ugu buuxsantay welina uu dastuurkii qabyo yahay marka waxaan dareemi karnaa runtii inaan u baahannahay inaan dowlad rasmiya waa dowladdii labaad heeramkii labaatani waan u baahannahay dowlad rasmiya iyo dastuur rasmiya inaan helno marka runtii su-aasha aad ahayd fahamka bulshadu ma taagan yahay meeshii loogu talagalay waxaan is leeyahay maya hadday tahay haa dee aniga iyo tiim kale oo asxaabta kamid intaan is abaabuloo dhaqaale isku darnaa odhan lahay war haddii dee bahalka barnaamijkaas haysto dee annagaaba ku deeqayno Soomaali donors noqonayne halka hal qabyo tiro oo dastuurkii waa macnaha muhiim qof kasta Soomaaliya u yahay halka uu taagan yahay ka dhaqaaqo marka waa mahadsantahay Axmed waxaan siinayaa Xawaale Cismaan oo SSWC ka socotay iyadana Somali Safe waa Somali Safe Women and Children waayahay haweenku waxa ay ka mid yihiin dadka laftigooda liita inta badan la leeyahay wuxuu u baahan yihiin dhanka dastuurka barakacyaal iyo dhibaatooyin fara badan oo ay jiraan oo iyadu laftigeeda qayb ka sidee baad is leedahay haweenku ku gaari karaa dhanka dastuurka ama ay ku baran karaan iyaga laftigooda bismillaah haweenka Soomaaliyeed iyo caruurta waxaan dhihi karaa dad Soomaaliya oo dhan ayadoo dhibkooda jiro oo dhibka Soomaalida dhan uu saameeyay haddana wuxuu sii saameynayaa dadka ugu nugul dhibkaas haddaan fiirino caruurta iyo haweenka dastuur iyo gaar ahaan barakacyaasha doodaas ayaka fikirkooda maba ahanba sababtoo ah xataa waxyaabaha aasaasiga haba yaraatee wax ay ka helaan lama arko hay-adaha samafalka shaqeeya mararka qaar waxa waaye si waxa ay arkayaan waxyaabo aad u dhib badan haweenkii oo aad duruufo adag ugu jiro haddana mararka qaar xataa haddii la soo aadaan dhanka sharciga hiilo badan oo saas uga helin marka haweenka iyo caruurta waxaa duruufo adag ay ku jiraan oo ku saabsan ugu horeynta xagga amni darada oo kaleeto taasaa keenaysa in qof walba uu soo ogeynba xaqa uu leeyahay sababta qof walba duruuf amni wala daalaa dhacaya marka weli ma la gaarin inay dastuur iyo waxaas ka fakeraan duruufaha haysta dartood waad mahadsan tahay wasiirkan dib ugu soo celinayaa wasiir marka sidee dowladdu ku xaqiijin kartaa in bulshada oo dhan uu gaaro dhinaca dastuurka oo qof walba marka inta halkiisii uu ku helo si fudud isaguna uu ku akhrisan karo ku dhaqankiisii isaga iyo dhinaca qaanuunka bay u fududaato bismillaahi dastuurka bulshada waxay ku xaqiijin kartaa oo annaga qorshaha noogu jiro dowladdan markii kumeel gaarka laga baxay sida uu Axmed sheegay dastuur oo kumeel gaar ah oo laakiin aan wax badan kala qeexayn ayuu ahaa waa lagu guuleysan waayay 4 sano hore 4 hadda socoto markaan annaga nimid istiraatiijiyo oo qabiyatirka hanaanka loo marahayo aan dejinay ka wasaarad ahaan iyo hay-ado nala shaqeeyo oo dastuurka nagala shaqeeyo oo 2 guddi ah oo heer federaal ah dowladda iyo maamul goboleedyada wuu jira marka dastuurka waa jilayaal badan buu leeyahay oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ayuu matalayaa waa heshiis bulsho waxaa la sameeyay prime ministerka wuxuu sameeyay wax la yiraahdo tubo la yiraahdo 4 tubood ayaa loo qaybiyay golaha wasiirada oo lagu soo aruuriyay shaqada dowladda 2020 si doorasho u dhacdo qofka muwaadinka Soomaaliyeed sanduuq meel u dhigan karo heli kara xaqiisii dastuur sameyn karo waxaas marka tubta dhaqaalaha iyo horumarinta tubta arrimaha bulshada tubta amniga iyo cadaaladda tubta siyaasadda loo dhanyahay taas baa annaga aan qayb ka nahay waxaa ku soo aroonahay wax walba oo siyaasad iyo shuruuc iyo la sameynahay dastuurka marka waxaan dejinay halbeegyo oo istiraatiijiye ah oo markaad shaqo inaad qabatid rabtid shaqadaas horta waa inaad u samaysid mabda iyo qorshe aad ka duulaysid ma wax iska furanay noqonaa dastuurkan siduu ahaan jiray mase horta ma la waqtiyena waxaan sameynay waqti aan sameynay 2 sano
2019 inuu soo gabagaboobo ayaan sameynay. Kadib guddiyaashii iyo annagii heshiisyaan kala qoranay cid walba dowrka uu ku leeyahay qabyatirka dastuurka iyo sida looga shaqeynayo. Qorshahaas oo wasaaradda marka annaga aan sameyno waxaa waaye maadaama bulshadii Soomaaliyeed sharcigan uu yahay sharcigii lagu dhaqayay in la gaarsiiyo waa laga maarmaan. sababtoo ah dastuurkan hadda aan haysano fursadda hadda jirta maysan jirin amni ahaan mase bulshadii Soomaaliyeed marka waxaan sameynay oo ka mid ah halbeegyada mase qorshaha noo degsan barnaamij aan ugu magac darnay wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada. dastuurka sida bulshada loo gaarsiiyo ayaan dejinay taasoo aan bulshada qaybaheedii kala duwanaa aan kulamo la sameynay ha noqdeen oo dhalinyaradii aqoon-yahanadii jaamacadihii dumarkii culimmadii miidiyaha waxaan sameynay markaa see lagu gaarsiin karaa bulshada. qorshahaas wuu noo degsan yahay in badan bulshada Soomaaliyeed way la socotaa. waxaan sameynay tababaro qaababka loo gudbinayo iyo dadka gudbinayo bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ku gudbin lahaayeen heer gobol iyo heer federaal lagu gudbin lahaa. waxaan sameynay barnaamij aan ugu magac darnay tababarka tababarayaasha. barnaamijka in mashruuc inaad gudbiso markaa rabtid cid walba horta waa in la isla fahmo wadadii la marahayay iyo toolskii iyo qorshihii iyo wixii dad baa u tababarnay gobol kasto aan ka keenay iyo gobolka Banaadir kadib wacyigelintii bulshada gaarsiinayaan. waxaa marka qorshahaas aan dejinay miidiyaha kamid ah oo la marsiinaa dadkii meelahooda loogu tagay maamul goboleedyadii iyo tuulooyinkii iyo meeshii tagi karaan loogu tagayaa. wuxuu noqonayaa marka barnaamijkaas oo wacyigelinta ah ilaa dastuurka uu ka dhamaado waa mashruuc soconayo. waxaa wacyigelin guud markay dhamaato haddana waxaa imaanayso qodob iyo aragtiyaha eriyada siduu kale yahay oo dastuurka isku raacsan yahay in dadkii loo waxeeyo. marka hanaankaas wuu degsan yahay waana ku shaqeynaa si fiican bulshada Soomaaliyeed inay noola jaan qaadana waa rajaynaynaa. sababtoo waxaan haddaan la helin ayaga waxaan wax ka ogaadin oo taladooda ay ku darsanin oo ay hadhowti wixii ilaalinayay masa lagu xisaabinayay ayuu noqonayaa. sababtoo waxaan haddaan la helin ayaga waxaan wax ka ogaadin oo taladooda ay ku darsanin oo ay hadhowti wixii ilaalinayay masa lagu xisaabinayay ayuu noqonayaa. waayahay waad mahadsantahay saacadda wasiir. Axmed waxaa jirtay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay dhammaadkii sanadkii aynu kasoo gudubnay. waxaa la sheegay dadku in aragtiyadooda sidii la rabay ama fikradahooda aan la ogoleyn inay cabiraan gaar ahaan dadka iyagu taagta daran sida kuwa barakacyaasha waxyaabo lamid ah xadgudubyo kalena ay la kulmaan aqoon la-aan la xiriirta dhinaca dastuurka. warbixinta iyada qaramada midoobay ay soo saartay maxaa ka run hadsileeday? daniyo horta ma wada odhanayo warbixinaha la soo saaray waa wada run mana wada odhanayo 100% waa been. warbixin markii la soo saaray cid baa soo saarta cidda soo saartayna dariiqaday u martay inay xogtaa soo hesho dee ayadaa taqaana dariiqaday ku gudbinaysana ayadaa taqaana. laakiin runtii aniga waxaan is leeyahay dadka Soomaaliyeed marka laga hadlayo barakacayaasha runtii waxaan dareemi karnaa dad ku jira duruufo nololeed oo adag inay yihiin basic life-koodiina uusan dhammaystirnayn. qofka bini'aadanka ahina waxaa mushkilad ugu filan horta inuu noolaado isagu. qof noloshiisii la daalaa dhacaya oo waxbarashadiisii warwar ka qaba oo cuntadiisii warwar ka qaba oo meeshuu seexan lahaa aan comfortable ku ahayn oo maaragtay happy ku ahayn meeshuu ku noolaa yacni nolol isaga laftigiisu transition ku jira isaga naftirkiisa nolol ku meel gaar ku jira qofka barakacayaasha ku noole.
marka qofkaasi inuu ra'yigiisa cabiro ama maaragtay xuquuqdii dastuurka uu ku lahaa uu helo maxaa la yidhaahdaa runtii waxaan isleeyahay ma wada noqonayso sidii uu samayn kari lahaa taa waxaan samayn karinin dadka soomaalida isaga maaragtay uga dhow institutionada dowladda ee laga yaabaa isaga inay maaragtay fursadaha xagga waxbarashada iyo nolosha iyo aqoontaba ay maaragtay ka horumarsan yihiin kuwaasay ku adag tahay inay sameeyaan oo maaragtay marmarka qaar fikirkooda sidii loo baahnaa ay u cabiraan marka waxaan is leenahay runtii waxaan u baahannahay si mushkiladahan oo dhan u dhammaadaan waayo barakacoyaashu waxay ka dhasheen sidaan dareemayno burburkii dowladdii soomaaliya siduu ka dhaweejiyey ee wasiir ku-xigeenku markii dowladdii soomaaliya burburtay dadka soomaaliya nin walba meeshii madaxiisu qaban karayay buu aaday waan soo laabanay cartaa dowlad la soo dhisay way ka soo waaday tan hadday taagan tahay dowlad kastaana in bay wax geynaysa waan garanaynaa qof kastoo soomaaliya oo garaad loo caqli leh oo maanta halkan fadhiya ama caalamka meeshuu doonaha ka joogo inuu garan karayo duruufaha soomaaliya ay kasoo gudubtay adkaa maanta duruuf fiican baan taagan oo leenahay inaan doodno su-aal isweydiino hoolkan oo kale isugu nimaadno marka runtii waxaan is leeyahay haddii la fiirfiiriyo mushkiladaha waxaan u baahanay dastuurkaani horta inuu qabyada ka baxo si qof kastoo soomaaliya muwaadini xaqiisa u helo ama xaq maxaa la yidhahdaa ra'yigiisa uu ku cabiro ha noqoto ama xaq uu maaragtay nolosha kale iyo xuquuqaadkiisa kale uu ku helo laakiin intuu constitutionka qabyo yahay runtii adiga naftarkaagu 100% xuquuqdaadii ma wada diyaarsana waayo wixii aan heshiiska ku noqon lahayn in isku afgaran lahayn in dhiqi lahaa heshiis bulsho noqon lahaa naftarkiisa qabyo ku jira markuu absagu qabyada ka dhamaado ayaan isleeyahay qof kastoo Soomaaliya markaas isagoo dastuurkiisa gacanta haysta oo le kana isiinaya xaqan oo meel kasta la istaagayo ra'yigiisa cabiri karaya ayuu qof kasta heli karaya xuquuqdaas laakiin hadda waxaan isleeyahay sida warbixinta ay soo sheegeen oo anagu oranay 100% waa wada runtii waxaan isleeyahay waxba ka jira culaysyadaasna way jiraan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed way wada haystaan gaar ahaan dadka nolosha danyarta ku nool iyo barakacayaasha ayaga si khaas ah u taabanaysa arrintaas Axmed waxaan siinayaa xaawin dhinaceeda xaawin ma jiraan arrimahan imika laga shanqalinayay ee ah in dadka barakacayaasha aqoon la'aan darteed iyo laftigooda tacaddi loogu geysto dhanka dastuurka la xiriirta hadda uu ka aaminsan tahay bismillaah barakacayaasha iyo bulshada ku nool Soomaaliya idil qof yaqaan ma arka xaq uu leeyahay qof walba hadduu iska soo kaco iska nool yahay uu iskaga qanacsan yahay waxa waaye ayakana wayba kasii liitaanba dad aad duruufahooda u adag yihiin waaye xuquuq ay leeyihiin ama wax lagu leeyahay inta ma fahmi karaan marka waxaan leeyahay wax ay ka og yihiin dastuur ma jiro kale gruubka siyaasadda bis oo ku eg yahay marka bulsho sanadaha soo socda xataa si ku fahmi karaan aad u adag waa xaq ay leeyihiin xaq ilayhin kaliya waxay u maleeyaan wax yaroo loo qaybiyo inuu yahay kaasay iskaga qanacsan hadday helaan xataa qofka wax oo u sameynaya xataa wixii ka aaminsan yihiin inuu wax badan ku qaatay oo wax badan ku cunaayo oo ayaka wax badan laga cunaayo waxa keenaya marka ogaan la'aanta iyo og yihiin aysa ka ogeyn wadanka waxa ka jiro iyo wixii Soomaali ahaan xaq u leeyihiin iyo waxa ay ka xaq loogu leeyahay inta maadaama aysa ogeyn حتى دال وح laga sidan waxay aaminsan in wax badan laga haysto marka ay iska dhaafay xataa inta wax barata ma ka warhayaan waxay xaq u leeyihiin laakiin waxa laga yaabaa markuu aqri caalamka kale waxyaabaha xuquuqaadka uu qofka leeyahay wuxuu iska jeclaysanaa inuu meelahaas kale ka tirsanaado oo wadankanba iskaga tago marka waxaan dhihi karaa wax ay ka og yihiin lama arko inta badan Soomaalida oo dhan way maasantahay xaawo bulshada qofkii su'aal qaba gacan uu noo taagi karaa si aragtiisa aan ugu darno wax yar mikrofoonka loo dhiibo wiilashan waxaan codsanayaa in la soo gaabiyo su'aalihiina adunkuna hadduu ilaah yiraahdo magacaaga ku bilow iyo meesha aad ka socoto kadib wixii aad su'aal qabto adiguna nala wadaagado mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم horta magacaygu waa Cabdullaahi Muuse aadan salaamaya wasiirka waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su'aal la xiriirta dastuurka sidaan filayo wasiirka dastuurka hadda dalka mas'uulka uga ah wasiir Xoosh wuxuu ahaa wasiirkii bilaabay dastuurkan qabyo qoraalkiisa 2010kii xilligii dawladii Shariif ilaa xilligan
waa dastuur taagan maalin kastana meel uu soo gaaro macnaha weli aanan la dhaqaajinin si muwaadinku u helo xuquuqdiisa u helo dastuurka inuu dhammaystirma ma waxaa hortaagan wasiirada adinka ay ka mid tihiin in xilalkiina siyaasadeed inay sii jiraan si haddii dastuurkii la qabyo tiro waxaan filayaa in aysan jiri doonin wasaaradaha dastuurka macnaha ma waxaa hortaagan dastuurka in la qabyo tiro wasaaradda dastuurka iyo guddiyada madaxa bannaan ee dastuurka federaalka sababtoo ah sidaan ognahay waxaa jirto dalal ka mid a adduunka ku yaallo waxaa jiro dalka turkiga oo kaleeta dastuurkiisii in la furay qodobo laga bedelay la ansixiyey shacabkii u codeeyeen maanta uu yahay dastuur lagu dhaqmaayo dastuurkeenna maanta 9 sannadood inuu ahaado dastuurku meel gaara wasaaradda dastuurka maxaa ugu qorshaysan sidaan ogna 2018 iyuu ku dhawaaqay wasiirka in dastuurku uu ahaan doono mid dhammaada maalin kastaan filayo waxaad ka dhigtaan sanadba sanadaa socdo sanadaa ku daraysaan 2019 hadda aad u madasheen in dastuurka uu ku dhammaan doono ma saxba ma dhici doontaa dastuurka inaad dhammaystirtaan dastuurka in uu dhammaado uu qabyo tirmane horta yaa hortaagan aada maasta bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha cabdinaas cabdiraxmaan waan salaamayaa wasiirka iyo marti sharafta kaleete ee ka soo qayb gashay barnaamijkan su-aasheedu waxay tahay bulshada soomaaliyeed waan ka warqabnaa inay aqoonteedu 90% ama 99 aynan aqoon aynan lahayn qof walboo soomaali ah uu ka dheragsan yahay inagoo taas og wasaaradaha dowladduna waxay ka kooban tahay wasaarado siiba wasaaradda dastuurku waxay ay shaqadeedu ay tahay in ay dastuurka ay dhammaystirto su-aasheedu waxay tahay wasaaradda dastuurku inta ay maaragtay